gabadhiisu ay tahay rugiisa oo ay tahay inaad yani maadaama rugayagii tihiin inaad noo xil qarisaan asturtaan Safiya waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhex bilaabatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga fal celiyeen ilaa anaguba aanu ka xumaanay ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeeyey oo maradii ka qaaday arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san hore kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga hore kugu sheego wax madax banaanay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya relationship naga dhexeeyay sheeko sheena gabadheedii yahay relationship iyo sheeko naga dhexeysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto haddii wax intaa ka duwan oo la hayaa jirtana cidii haysaa soo marto diyaar baan waay marka waxaad leedahay wax qabisa oo meesha jirta maba jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallahi kulli gurgu waa wax weyn Safiya oo gabadh caana marka la isguursanayaan wax qarsoon ma marka la isfurayaan wax qarsoon ma marka hadda salahan walaashii Safiya san anu iyada ka maray ama kelibada daawada saxsan bayhaas marka koowaad ee ay yani arrinkan laga soo sheegay waxay sheegtay in relationship iyo qof relationship ay haysato oo relationship